kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada muuqaal kale iyo nacfi media. Muuqaalkan waxaan ku sharaxi doonaa 3 tallaabo oo ugu fudud oo aad ku heli karto waji qurux badan oo dhuuban. Dad badan waxay aaminsan yihiin in waji dhuuban lagu heli karo oo kaliya qaliin ama kareemooyin qaali ah, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in qaabka wajigaaga uu si toos ah ula xiriiro hab nololeedkaaga iyo sida jirkaaga biyaha iyo baruurta uu maareeyo. Haddii aad rabto inaad ka takhalusto cayilka wajiga ee face puffiness-ka loo yaqaano iyo baruurta dhabanada, haddaba raac 3 tallaabo ee cilmiyadeed. Midda koowaad, xakamee haystaha biyaha ama reduce water retention. Inta badan wajiga weyn ma aha baruurta dhabta ahayd, balse waa biyo uu jirka ku haysto unugyada wajiga dhexdiisa. Cadowga koowaad waa cusbada. Haddii aad cunto cusbo badan, jirkaaga waxa uu u baahanayaa in uu biyo badan haysto si uu cusbadaas u qaso, taasoo keenta in wajiga uu bararo. Xalka, yaree cusbada gaar ahaan habeenkii oo kordhin karta cabista biyaha, isla markaana loo baahan yahay in aad sare u qaaddo marka aad biyo cabayso. Marka jirka uu helo biyo ku filan, wuxuu iska soo saaraa biyaha dheeriga ee uu marka hore keydsanayay. Jimicsiga jirka guud, gaar ahaan cardio over face exercise-ka loo yaqaano. Haddaba sida aan hore u soo xusnay, ma gubi kartid baruurta dhabanada kaliya adigoo afka dhaqaajinaya. Si wajiga u dhuubto, waa in boqolkiiba baruurta jirkaaga ee body fat percentage-ka loo yaqaano ay hoos u dhacda. Xalku waa inaad sameyso jimicsiga wadnaha sida socodka degdega, orodka ama dabaasha ugu yaraan 30 daqiiqo maalintii. Natiijada, marka jirkaaga uu bilaabo inuu baruurta gubo, meesha ugu horeysa isbeddelku ka muuqanayo badanaa waa wajiga. Hurdo la'aantu waxay kor u qaadaa hormoonka cortisolka oo keena bararka wajiga. Dad badan waxay ku wareersan yihiin ama ay ku wareeraan sida wajiga u weynaan karo ama u barari karo xilli aysan jirin cayil muuqdo oo jirka ah. Xaqiiqadu waxay tahay in wajiga uu yahay meesha ugu horeysa ee ka falcelisa khaladaadka yaryar ee nolol maalmeedka sida cuntada, hurdada, stresska iyo cabidda biyo la'aan. Haddaba tallaabooyinkan waxay noqon doonaan kuwo sahlan oo dabiici ah, isla markaana cilmi ku saleysan oo kaa caawinayo inaad hesho waji dhuuban oo caafimaad qab ah oo aad u qurux badan. Wajigaaga wuxuu toos uga turjumayaa waxaad cunto. Cuntooyinka qaarkood waxay keeni karaan barar, halka kuwa kalena ay gacan ka geystaan wajiga oo yaraada. Maxaa wajiga bararaya? Cuntooyinka la farsameeyay ee processed foods-ka loo yaqaano, sonkorta badan, cuntooyinka shiilan, cabitaanada macaan. Haddaba maxaa caawinaya wajiga in uu dhuubto? Qudaarta cagaaran, marka biyaha sida fruutka, tufaaxa iyo qaraha ayaa ka mid ah mirahaasi kuwa waxtarka ugu badan ee jirka ku keeno, gaar ahaan wajiga. Qudaarta cagaaran marka laga hadlayo, waxaa soo gelaya spinach-ka iyo caleenta kale. Borotiin nadiif ah sida ukunta, kalluunka, digirta iyo wixii la mid ah. Iyo cabista biyaha diiran subax walba. Marka jirkaagu uu helo nafaqo sax ah, dheefshiidku waa uu hagaagaa. Taasi waxay yareysaa bararka wajiga iyo sidoo kale dhabanada. Tallaabada xigto, maaree stresska iyo sidoo kale neefsashada. Dad badan ma oga in stresska uu si toos ah u saameeyo wajiga. Marka aad u fikirto ama walwasho, jirka waxa uu sii deynayaa hormoono keena bararka iyo wajiga ka dhiga kuwo daalan, dhabanadana aad u cayiliya ama buurni saa'id ah ku siyaadiya. Haddaba xalka ugu fudud, samee neefsasho qoto dheer 5 ilaa 10 daqiiqo maalintii. Ka fogow fikirka badan habeenkii. Socod gaaban samee marka aad dareento culays. Marka walbahaarka uu yaraado, jirku waa uu istajiyaa, biyo xad dhaafana way baxaan, wajigana si dabiici ah ayuu u dhuubtaa. Midda xigta ama tallaabada xigta ee talooyinka halkan aan ku sharaxayno ka mid ah, waxaa ka mid ah daryeel joogto ah oo nadiifinta wajiga.
wejiga oo la nadiifiyo si saxana loo daryeelo wuxuu ka hortagaa bararka, daloolada xirmay iyo wejiga inuu noqdo mid culus oo aan qurux badnayn ama soo jiidasho lahayn. Waxyaabaha muhiimka waxaa ka mid ah dhaq wejigaaga subaxdii iyo fiidkii, ku dhaq saabuun jilicsan, ku maydh biyo qabow si ay unugyadu u adkaadaan, si tartiiba u duug wejiga ama masaaj garee 3 ilaa 4 jeer usbuucii. Duugistu waxay dedejisaa wareegga dhiigga waxayna ka caawisaa wejiga inuu noqdo mid khafiif ah oo ifaya. Haddaba weji qurux badan oo dhuuban ma aha arrin qaliin ama kareen qaali ah sababi kara, balse waa natiijo ka dhalata cunto sax ah, nolol degan, daryeel joogto ah. Haddii aad si joogto ah u raacdo tallaabooyinkan, isbeddelka ugu horreeya aad arki doonto ama wejigaaga ayuu noqon doonaa ka hor inta uusan jirka intiisa kale isbeddelin. Waayadan dambe, gaar ahaan baraha bulshada, waxaa si xawli ah ugu soo kordhaya isticmaalka dawooyinka kaniiniyada ama cirbadaha lagu sheego inay si degdeg ah u dhuubiyaan jirka ama wejiga. Inkastoo ay u muuqdaan xal sahlan, haddana dawooyinkan badankood waxay wataan khataro qarsoon oo caafimaad ahaan halis ah. Haddaba dawooyinkan inta badan ee lagu iibiyo suuqyada ama internetka ma laha oggolaansho caafimaad ama aqoonsi ama rukhsad lagu iibiyo, lama tijaabinin cilmi ahaan, qaarna waxay ku jiraan walxo aan la shaacinin. Dad badan waxay u qaataan iyagoo aan talo dhakhtar ka helin, taasoo keeni karta dhibaato culus. Khatarta caafimaad ee ka dhalan karta waxaa ka mid ah dhibaatooyinka soo gaara xagga wadnaha iyo dhiig karka. Dadka qaar waxay dardar geliyaan garaaca wadnaha, taasoo keeni karta ama daawooyinkaasi intooda badan waxay noqdaan kuwo dardar gelinaya ama sare u qaadaya wadna garaaca, dhiig karka oo qofka ku kaco, iyo istaroogga. Dhibaatooyinka kelyaha ayaa ka mid ah waxyaabaha lala xiriiriyay dawooyinkan. Jirkaaga wuxuu daawo kasta u maraa kelyaha iyo beerka. Dawooyinka dhuubnida qaarkood loo isticmaalo waxay daciifiyaan kelyaha, waxay sababi karaan beer xanuun joogto ah, waxay keeni karaan sun ururta jirka ku ururto. Haddaba isticmaalka dawooyinkan aan la xakameynin wuxuu markaasi qaldaa hormoonnada, wuxuu sababi karaa caado la'aan ama caadada aan joogtada ahayn, waxa uu hoos u dhigi karaa taranka mustaqbalka. Haddaba wejiga oo xumaada ayuu keeni karaa. Inkastoo ujeedadu tahay qurux, haddana natiijadu mararka qaar waxay noqotaa weji qalalan oo duqooba, maqaarka oo midabkiisa isbedelo, wejiga oo caata noqdo laakiin caafimaad la'aan ay soo gaadho. Haddaba sababaha dadka u adeegsadaan iyagoo og khatartooda, degdeg ayay natiijo u muujiyaan. Baraha bulshada iyo xayeysiin xooggan oo looga sameeyo baraha bulshada ayaa ka mid ah waxyaabaha ku kalifay in ay iibsadaan. Dad caan oo isticmaalaya ama ku xayeysiinaya baraha bulshada ayaa sabab u ah in iibsiga ama iibsashada daawada ay korodho. Bulshada markaasi cadaadis ku saarta muuqaalada jirka. Haddaba talooyinka aan siinayn waxaa ka mid ah haddii aad doonayso weji wanaagsan oo dhuuban, haddaba cuntada iska sax, nolosha sax, ka fogow wax walba oo markaasi ku ballan qaadaya natiijo degdeg ah. Ha qaadan daawo adigoo dhakhtar la tashan. Waxaad isku daydaa in aad markaasi isticmaasho waxyaabaha dabiiciga. Guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkan maanta. Subscribe inoo saar channelka.